السلام عليكم رمضان وناكسن كسودو حلقوينك اسبدل حلقة السدحات حلقة السدحات waxaan ku wadaagi doonaa heerarka uu maro isbedelka ama qofka doonaya inuu isbedel sameeyo halka labada xalqee hore aan uga soo sheekaysanay faham guud oo ku saabsan isbedelka iyo waxyaabaha dhaliyo qofka inuu isbedel sameeyo markii isbedel laga hadlayo process ayaa jira qofka uu maro oo ilaa uu heerka ugu dambeeyo uu noqonayo qofka inuu isbedel guul leh oo miro dhal ah uu sameeyo heerkaas waxa kamid ah heerka koowaad heer la yiraahdo mas'uuliyad darab badana dhalinyarada heerkan way ku wada jiraan waa heer ay baahi u qabaan inay isbedel sameeyaan laakiin diyaar uma aha inay isbedel sameeyaan oo tusaale isbedelkooda ugu badan waxay ku xiraan dhacdooyinka noloshooda ku hareeraysan inay maalin helaan gabar qurux badan inay helaan hanti wanaagsan inay noqdaan qof oo maxay ahaatay milkiila ama ganacsi ama whatever kaleeto haddii intaas ay isku helaan aragtida ugu weyn ee miskiinaya waxay tahay in one of the day ay sameyn doonaan isbedel weyn oo guul miro dhal ah sameeyo marka heerkaas inta ugu badan dadka ku jira heerkaas qofku markuu ku jiro ma qaadi karo mas'uuliyadiisa macallin uu eedeynaayo waalidkiisu uu eedeynaayo saaxiibadii uu eedeynaayo deegaanku uu eedeynaayo waa heer koowaad heerka labaad waxa waa heerka mas'uuliyad qaadashada heerkan qofku heerkan sidoo kale waxa lagu magacaabaa heerka isbedel abuurka marka la dhahayo laba arrin marka shaqada ugu weyn uu qabanayo qofka laba arrin waa arinta koowaad waxay tahay mas'uuliyadiisa ayuu qaadanayaa wuxuu rabaa inuu isbedel sameeyo si isbedel uu sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu mas'uuliyadiisa qaato maxay tahay qaladka ugu weyn ee aad sameysay oo aad u baahan tahay inaad bedesho si aad u bedeshana maxay tahay inaad sameyso si aad u sameysana maxaa kuugu dhiirigelinaya marka heerkan waxa waa heer uu mas'uuliyadiisa qaadanayo wax labaad uu sameynaa waxay tahay si arintaas aad u sameyso maxaa u baahan tahay just waxa u baahan tahay waxay tahay decision making okay decision making inaad sameysid marka heerka labaad uu qofku marayo waxa waa heer isbedel abuur la dhaho heerka isbedel abuurkana qofka laba shay ayaa laga rabaa inuu sameeyo mas'uuliyadiisa inuu qaato iyo wax labaad oo ah in go'aan uu qaato heerka saddexaad waxa la dhahaa heerka diyaar garowga okay right now waxa diyaar tahay inaad isbedel abuurto wax labaad laga baahan yahay waxa waa diyaar garow maxaa u diyaar garoobaya number 1 waxa raadsataa wax la yiraahdo mentor ama la taliye noloshan sideedaba qof ma jiro like completely ah oo qabiir ah oo expert everything yaqaana ilaahay subhanahu wa ta'ala ibn aadan wuxuu abuursay koox oo qof kaliya la abuuray ma jiro dadka dhan ka maarma marka waxa uu u baahan tahay waxay tahay si isbedel miro dhal leh uu noqdo inaad raadsato la taliye ka caawiya horumarka iyo isbedelka nolosha uga baahan tahay hal mid aan ku sheegayaa noloshaada meelaha isleedahay waxa u baahan tahay inaad expertise ku noqoto waxa u baahan tahay inaad la taliye ka raadsato haddii 5 meel oo kala duwan aad aragtid inaad expert ku noqotid 5 la taliye samayso oo kala duwan oo cilmiga wax ka yaqaan sababtoo ah markaas waxa haysataa 5 aqoon 5 aragti iyo 5 hab fakar marka heerkan diyaar garowga marka marayso wax koowaad u baahanayso wax waa inaad la taliye samaysid wax labaad u baahanayso waxay tahay research inaad samaysid inaad wax baartid marka wax badan baarto waxa ogaanaysaa wax badan marka wax badan ogaatana waxa haysataa hanti badan oo aad ku horumarin karto noloshaada ha noqoto isbedel ha noqoto wax kaleeto wax saddexaad oo baahan tahay waxay tahay wax la yiraahdo planning ama qorsheyn inaad wax qorsheyso okay heerkan diyaar garowga waa inaad qorsheysaa safarkan bilaaban doona halkuu ka bilaaban doona halkuu mari doona halkuu isku dhamaan doona ila soco heer saddexaad la marayna okay heerka afraad wuxuu noqon doonaa heerka afraad waxay tahay heerka hirgelinta waan soo diyaar garoobay qorshaan samaystay la taliyaan samaystay waxba baaray heerkan waxay tahay wixii aan hore u soo sameysay la taliyaaga wixii uu soo siiyay wax baarista ka soo ogaatay qorshahan aad u sameysay ina implementation ku sameyso mid like talada ugu fiican as leeyahay qof dhalinyaro waa siin kartaa markii la joogo hirgelinta waxay tahay ina qorshahaaga kaliya ha yaraado ina joogtaysa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka soo wariyay wuxuu dhahay ilaahay agtiisa amalka loogu jecel yahay waa amalka la joogtay haba yaraatay idmin amalka ha yaraado doono laakiin wax loogu jecel yahay maxay tahay inaad joogtayso haddii maalintii aad aqriso 1 page oo like book ah every day xeer waxa jira dhahay 1% rule 1% rule waxa waaye every day 20 minutes ka tirsan inaad shaqo qabato marka hirgelinta waxa way door weyn ka qaadata qofka inuu isbedel sameeyo nin dhakhtar wuxuu leeyahay isbedel la taaban karo emergency si aad u sameyso waxa u baahan tahay every morning marka soo toos inaad sariirtaada hagaajiso like fikir ku jira maxaa waaye haddii maalin walba isku daydo inaad sariirtaada hagaajiso mentality ahaan isbedel kugu dhacay haddii mentality ahaan kugu dhacan wax badan iska bedelay okay wax la mareena heerka shanaad okay heerka shanaad waxay tahay heerka joogteynta heerka waxay tahay wixii aad rabtay inaad hirgeliso in aad joogteyso
xadiiskiina horena ku soo sheegnay sallallahu alayhi wasallam uu wariyo ahaa in ilaahay agtiisa loogu jecel yahay camalka yar ee la joogteeyo haddii camal weyn aad joogteyso wax weyn aad samayn kartaa dadka maanta adduunyada guulaha ugu waaweyn gaaray like businessman ha noqdo ama area kaleeto successful ha ka gaaro ama wax kaleete wax kasmiyeen waxay tahay wax la yiraahdo constantly inay joogteeyeen shaqada ay qabanayaan no matter maanta xaaladda ku jirto okay like hantida haystid duruufta ku haysto qoyska la noosh xaaladda hadda tan ku sugan tahay hantida haystid qoyska la nooshahay duruufta ku haystid waxa soo dhan laakiin maalinka shaqo bilowdo shaqadaasna aad joogteyso one of the day you will be hero okay xidiga noqon doonta hawshaas loogu dambeeyo marka heerka shanaad ee isbedelku uu maro waxay tahay heerka la yiraahdo joogteynta haddii aadan joogteynin oo heerkaas aad ku joogsato heerkaas in la soo gaaraa wax adag ah marka hada heerkaas soo gaarto you are good tried inaad si improve gareyso heerka ugu dambeeya waxaa la dhahaa heerka xalinta dhibaatada last stage dhaqan xun aad lahayd okay dhaqan xun oo noloshaada ku jira waxa u baahnayd inaad ka go'aan gaarto heerkooda waxa soo marsiiso ah like heerkooda ka soo gudub mas'uuliyad darro waxa u soo gudubtay heerka labaad oo mas'uuliyadaada inaad qaadato heerka labaad waa ka soo gudubto waxa u diyaar garowday inaad isbedel samayso heerkaas diyaar garow waa ka soo gudubto waxa u maad hirgelin waa ka soo gudubtay joogteyn waa ka soo gudubtay right now waa xalis dhibaatadii ku haysay heerka ugu dambeeyay waa marka lixdan xeer ayuu isbedelka maraa su'aal ara marka hadda inaad ku hordhigo heerka maraysa isbedelkaagana halku u dhow yahay ma bilow ayuu joogaa mas'uuliyad darra ku jirtaa mise xalinta dhibaatada ayaa ku dhowdahay anigu Cabdi Fataax Qaasim Cali barnaamijkan waa xalqooyin isbedel mahadsanidin